wafdigu wuxuu ka kooban yahay wasiirka arrimaha dibadda Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea waxay u yimaadeen in iyagoo ka jawaabaya socdaalkii dhawaan uu madaxweynuhu ku tagay dalka Eritrea socdaalkaas oo ay aad u soo dhaweeyeen ayay goosteen inay dhaqso uga soo jawaabaan wuxuu muhiimadda xambaarsan yahay waxa weeye in la xoojiyo xiriirka labada dal ee walaalaha ka dhaxeeya